xogahayaha fulinta dawladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur ayaa maanta xarunta dawladda hoose degmada Burco ka kala diray gawaadhi ay ku xunay yihiin codbaahiyaal dadweynaha magaalada Burco laga wacyi gelinayo cudurka saameeyay dunida ee coronavirus iyo shaqaale wacyi gelineed xogahayaha dawladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in bulshada magaalada Burco ay hoggaamsamaan awaamirta ay soo saareen guddida loo xil saaray xakamaynta cudurka coronavirus waxaanu fulinaynaa oo aanu doonaynaa inaan anaguna fulino haddaan nahay maamulkii dawladda hoose degmada Burco inta ka soo baxaysa guddigii madaxweynuhu u magacaabay ka hortagga cudurkan xun ee magaciisa la yiraahdo virus adduunka oo dhan ka qaylisii ilaahay waxaynu ka baryaynaa ilaahay inuu naga nabadgeliyo aanu ilaahay inoo taasi waa qodob waxaan markaa leenahay halkan waxa aragtaan subax kasta imka waxaan caaday imka muddo ka wadnay hoose oo wacyi gelin wada magaalada Burco ama suuqyada magaalada Burco waxaanu leenahay muwaadiniinta u sheegaynaa in iskaaga garab taagtaan oo nagala shaqeysaan oo aad dhagaalataan wax la idinku wacyi gelinayo guud ee magaalada Burco inaan ka wada shaqeyno ta guud iyo ta gaarba oo bilaabo oo farxalkan maalin kasta farxasho jirkiisa nadiifiyo isagoo nadiifiyo oo dabadeedna inta ka bacdina danta guud ee magaalada Burco nadaafadeeda ka soo qayb galo gaadiidkii dawladda hoose shaqaalihii dawladda hoose maamulkii dawladda hoose golihii deegaanka qof lagama maqna saasaan ku wada shaqeynaa waxaanu doonaynaa in iskaaga garab taagtaan reer Burco sidii aynu uga wada shaqeyn lahayn nadaafada guud ee Burco waxaanu ku wacyi gelinaynaa waxaanu ku adkaynaynaa waxaanu muwaadiniinteeda reer Burco u sheegaynaa in fariinta aanu farayno ee guddigii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu u magacaabay ka hortagga cudurkan xun ee magaciisa la yiraahdo coronavirus in awaamirtaana aanu fulinayno idinkuna aad dhagaha u furtaan oo weelaysaan baanu doonaynaa ururada meelaha lagu kulmayo sida marfishyada qaadka sida maqaaxiyaha sida lagu ciyaarayo sida meelaha kale ee populationka badan had iyo jeer ku kulmaan dadka qaar baa meela ku shaxo 100 qof baa afka iyo madaxa iswada gelinaya waxa soo dhan way naga reebay waxaanu leenahay oo ku celcelinayna ilaahay nooma keenin mana jiro cudur maanta Burco iyo dalka Soomaaliland toona ka jira laakiin waxaanu leenahay wayn la feejignaada Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida